Bismillahirrahmanirrahim. Dowladda Mareykanka ayaa weerar ku qaaday gudaha wadanka Iran caawa iyadoo ciidamada difaaca cirka ee wadanka Iran ay dadaal xoogan oo wax iska caabina ay ku jiraan. Madaxweynaha dalka Mareykanka Trump oo hadla waxa uu ku dhawaaqay in caawa ilaa maalinta berri ay socon doonaan duqeymo toos ah oo wadanka Iran uu doonayo in uu ku burburiyo awoodooda isagoo tilmaamay dowladda Mareykanka imtixaan adag ayaa horyaala maalmaha soo socda ayaan soo gabagabayn doonaa ayuu Trump ku yiri caawa warbaahinta isagoo ka hadlaya duqeymaha ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran waxa ay ka waramayaan duqeymaha ku socda caawa wadankooda isla wararkaasi haddii aan sii eego Trump ayaa ku dhawaaqay in uu jeedin doono khudbad qaran dhawaan oo shacabka Mareykanka uu la hadli doono iyo guud ahaanba adduunka warna uu ka soo saari doono xiisadaha ugu dambeeya ee ka taagan gobolka bariga dhexe Xuutiyiinta waxay ku dhawaaqeen caawa in ay weerareen garoonka diyaaradaha Abha waxana ay ballan qaadeen duqeymaha in ay noqonayaan kuwa sii soconaya oo aan la istaajin doonin ilaa ugu dambeyntii dagaalku noqon doono mid xalkama dambaysa keena baa yiri oo dowladda Sacuudiga ay ka soo laabato gardarrada duqeymaha ah ee wado muxuu caawa sheegay afayeenka dhinaca militariga ee kooxda Yahya Saraac oo shir jaraa'id qabtay warbaahinta Carabtana ay tabinayaan caawa nidaamka Israa'iil warbaahintiisa waaweyn waxay ka waramayaan dowladda Sacuudi Arabiya oo shuruudo kale ku xirtay baa yiri in calaaqad diblomaasiyadeed ay la samaysato nidaamka Israa'iil haddaba gobolka bariga dhexe mid la huba ayaa waxa uu yahay inuu geedo yahay hase ahaatee halka loo sahmiyay iyo biranka lagu furi doono labadaba lama yaqaano laakiin waxaynu eegi doonaa bal xogahaasi ugu dambeeyay si adiga oo xogtii ugu dambeeyay aad maalinta berriya ula jaan qaado dhacdooyinka cusub aan idin la wadaagi doono haddii uu rabbi saamaxo soo dhawaada ikhyaaray ma doonaysaa inaad Masar u tagto adeega caafimaad dalxiis waxbarasho iyo deegaan shirkadda Deeqsan Visa Group ayaa diyaar kula ah inay ka caawiso inay ku soo saarto fiisaha haddii aad wadato baasaboorada dalalka Soomaaliya Kenya Djibouti iyo Yemen shirkaddu waxay kugu xiraysaa dhakhtar ku sameynaysaa turjumaad ku kireynaysaa guryaha iyadoo ka qaadaysa khidmad yar fadlan la xiriir wixii faahfaahina nambarada shaashada ka muuqda duqeyn adag ayaa hadda ku socota qaybo kamid ah koonfurta wadanka Iran madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu ku dhawaaqay in duqeymuhu ay sii socon doonaan caawa ilaa iyo berri kana bedelan yihiin kuwii hore waxa uu leeyahay caawa waa habeen dheer habeen taariikh ah habeen waxa uu leeyahay Mareykanku ay arki doonaan guulo aan in mudaba ka celcelinayna dowladda Iran inaan awoodda ciidamadeena tusno shir jaraa'id uu qabtay ayuu goordhow sidaas ku sheegay iyadoo dalka Iran laga soo warinayo duqeymo adag inay ka dhacayaan dhowr deegaan oo kala duwan oo ku yaala gudaha wadankaasi madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa wax yar kadib markii ay duqeynta bilaabeen ciidamadiisa ku dhawaaqay in Mareykanka caawa ilaa iyo berri ay wadi doonaan weerar xoogan oo ka dhana wadanka Iran isagoo sheegay waa sida uu leeyahay in Washington ay sii adkeynayso tallaabooyinka militari ee gobolka Trump waxa uu sheegay in Mareykanka uu gacanta ku hayo xaaladda marinka Hormuz isla markaana uu damacsan yahay in uu noqdo ilaaliyaha marinkaasi muhiimka ah isagoo carabka ku adkeeyay in marinka uu furnaan doono isla markaana maraakiibta ay u ogolaan doonaan inay halkaasi maraan hase ahaatee dowladda Iran ay kaliya wajahi doonto ciqaabta iyo cawaaqibka dowladda Mareykanka qoraal uu ku baahiyay bartiisa Truth Social Trump waxa uu ku sheegay in Mareykanka uu dib u soo celinayo waxa ugu yeeray godoominta Iran isagoo xusay in tallaabooyin uu ku beegsan doono kaliya maraakiibta Iran iyo kuwa xiriirka la leh halka maraakiibta dalalka kale ay si xor ah halkaasi u mari doonaan sidoo kale Trump waxa uu shaaciyay in laga bilaabo hadda la hirgelin doono nidaam cusub oo lagu qaadayo 20% lacag magdhow ah badeecadaha marinka Hormuz taas oo ku sheegay in ay tahay qarashka lagu sugayo amniga badqabka Mareykanka marinkaasi Trump lacagihii uu u diiday dowladda Iran hadda uu duqeyn wada waxa uu leeyahay meesha aniga kaliya ayaa kaaba ka noqonaya sidaas daraadeed ma jiri doonto markab iska mara halkan laakiin 20% waxa laga qaadi doonaa cashuur intaas dhan ee halala socdo waraysi uu sidoo kale siiyay Fox News waxa uu ku celiyay in Mareykanka uu maamuli doono marinka Hormuz waxa uu yiri waxaan noqon doonaa ilaaliyaasha marinka
waana in lagu abaalmariyaa doorka aan ka qaadanayno sugidda amniga halkaasi. waxa uu sidoo kale ku eedeeyay Iran in ay jabisay heshiiskii is-afgaradka ahaa ee labada dhinac, isagoo ciidamada Mareykanka sheegay in habeen hore ay qaadeen weerar culus oo dhanka bartilmaameedyo badan ku yaala. Iran ayaa ku dheeday jawaab ka bixisay hadalka Trump uu caawa sheegay, iyadoo dhinacyadana ay duqeymo fara badan ay isu geysanayaan. goobaha la duqeeye waan kula wadaagayaa aan ka hormaray jawaabta wadanka Iran. dhankiisa la taliyaha hogaamiyaha sare ee Iran Muhsin Rida ayaa sheegay in marinka Hormuz uu yahay tiir muhiim u ah amniga iyo dhaqaalaha dalka Iran, isla markaana aysan jirin wax ka bedel lagu sameyn karo. Rida waxa uu sidoo kale ku adkeeyay dowladda Mareykanka inay doonayso baa layiri inay ku antacooto waxa dowladda Iran ay hore uga diiday oo xaq u leh, sidaa daraadeed dowlad dool ah ma maamuli doonto bay leeyihiin halkan. taliyaha taliska Qatamul Anbiya ciidamada Iran ayaa sidoo kale u diiday baa layiri wax kasta oo doora oo Mareykanku ay ku yeelan karaan marinka Hormuz. waxana uu yiri Mareykanka waa iska riyoonaya mooyaane ma jiraan baa layiri in wax tallaabo ah ay qaadi karaan sida wararku ay tilmaamayaan. waayahay caawa weerar culus ayaa ka soconaya gudaha wadanka Iran, iyadoo dowladda Tehraanna ay bixisay inay bixinayso ku dhawaaqday jawaabo aad u culus. wakaalada wararka Iran ee IRNA ayaa sheegtay in 4 qarax laga maqlay bariga magaalada dekada leh ee Bandar Abbas oo ah halka uu ku yaalo saldhigga ugu weyn ee ciidamada badda ee dowladda Iran, gaar ahaan ilaalada kacaanka, xilli uu sii xoogeysanayo iska horimaadka u dhaxeeya Mareykanka iyo waliba dowladda Iran. dhinaca kale taliska Mareykanka ee ciidamada ee CENTCOM la yiraahdo ayaa isna sheegay in uu fuliyay mowjado cusub oo duqeymo ah oo ka dhacay gudaha Iran, kuwaas oo lagu bartilmaameedsaday 10 goobood oo military ah. goobaha la beegsaday waxaa ka mid ah baa layiri meelo yaalaan nidaamyada difaaca, goobaha raadeerada sida Mareykanku ay durbaba qoraalka ay soo saareen ay ku tilmaameen. Iran waxay sheegtay weerarada ka dhanka ah saldhigyada inay iyana qaadi doonto oo ay durbaba doonayso inay ka jawaabto duqeymaha bilaabanaya. Trump waxa uu Mareykanku leeyahay ciidanka ugu xoogan adduunka ayuu yiri, sidaa daraadeed suuragal maaha in aynu ka joogsano duqeymahan iyo waliba in aan dowladda Iran u jeedino buu yiri ciqaab aad u kulul oo ay kala kulmi doonaan weerarada xoogan oo ay sameynayaan diyaaradaheena iyo ciidamadeenaba, iyadoo meelo kala duwan oo ka mid ah bariga wadankaasi si toosa looga soo sheegayo inay haatan dhibaatooyinku ay sii xoogeysanayaan oo ay duqeyntu kordhayso. waayahay haddii aan eego wakaalada wararka ee Tasnim waxay leedahay dhowr ka mid ah maraakiibta isticmaalaya marinka Hormuz ayay ciidamada ilaalada kacaanku ay weerareen kadib markii ay diideen baa layiri qaadashada awaamiirta ka soo baxaysa dhinaca dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran. taliska dhexe ee Mareykanka waxa uu leeyahay waxaan bilownay dhaqangelinta oo sida ay leeyihiin arrimaha la xiriira cunaqabataynta wadanka Iran la saarayo, taas oo la xiriirta isbedelada waaweyn ee hadda soo kordhay. Trump ayaa ku dhawaaqay in uu khudbad u jeedin doono shacabka Mareykanka iyo waliba guud ahaan dunida, isla markaana uu kaga hadli doono arrimaha la xiriira isbedelada waaweyn ee ka jira gobolka bariga dhexe. khudbadaas ayaa waxa uu ballamiyay maalinta Khamiista ah ee soo socota. madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in Khamiista uu jeedin doono khudbad qaran xilli ay cirka isku shareertay xiisada u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran. Trump ayaa sheegay in Mareykanka uu sida uu hadalka u dhigay uu si buuxda u maamulayo marinka Hormuz, isla markaana dadaalada ugu badan uu hadda bixinayaan. Trump waxa uu sidoo kale sheegay in Washington ay dib u soo celinayso waxay ugu yeertay go'doominta Iran, iyo waliba khudbadiisa qaran uu Trump shaaciyay Khamiista ayaa la filayaa in uu diiradda ku saaro Hormuz, siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Iran, tillaabooyinka military ee maamulka Washington sida wararka hadda la helayo ay tilmaamayaanba. waayahay wararka ee wargeysada caalamka waxaa rabaa si kooban inaan kuugu dulmaro maadaama gobolku uu caawa holcayo oo dhinac kasta ay furima ka furan yihiin. kooxda Xuutiga ee wadanka Yemen ayaa ku dhawaaqday inay caawa weerareen garoonka diyaaradaha ee magaalada Abha ee wadanka Saudi Arabia, iyagoo uga jawaabaya duqeyntii lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Sanca sida ay goor dhaweyd sheegeen.
dhaqdhaqaaqa kooxda xuutiga ee wadanka Yemen ayaa ku dhawaaqay in ay fuliyeen howlgal military oo lagu beegsaday garoonka caalamiga ah ee Abha ee ku yaala koonfurta wadanka Sacuudiga. afayeenka militariga xuutiga Yahya Saraac ayaa sheegay weerarka lagu qaaday garoonka in lagu fuliyo gantaalo baalistiga iyo diyaaradaha iswada oo drone ah. sida uu sheegay Yahya Saraac, weerarkan ayaa yimi kadib markii uu Sacuudiga uu sida uu hadalka u dhigay ku qaaday duqeyn dhanka cirka garoonka caalamiga ah ee magaalada Sanca 1:54 daqiiqo xilliga duhurnimada Isniintii shalay ahayd. afayeenku waxa uu sidoo kale ku eedeeyay Sacuudiga inuu isku dayay inuu xiro garoonka Sanca si loo joojiyo duulimaadyada bini'aadanimo ee qaada baaliri bukaanada iyo dadka ku xaniban wadanka Yemen ee u baahan gargaarka bini'aadanimada. wuxuu intaasi ku daray in ciidamada Xuutiyiintu ay isku dayeen inay ka hortagaan diyaaradaha dagaalka Sacuudiga, isagoo ku tilmaamay weerarka lagu qaaday garoonka Sanca mid gardarro ah. Yahya Saraac ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday garoonka Abha uu ahaa jawaab toos ah oo ay bixiyeen duqeynta Sacuudiga laga qaaday ama ay soo qaadeen oo hadda jawaab laga bixinayo buu yiri, sida dowladda Mareykanka dowladda Xuutiga ee caalamku aanay aqoonsan ay hadalkaasi u dhigayaan. qodobada xiisada ee diblomaasiyadda markaas inta qodobada xiisada ee dagaalka markaa inta uga imaado dhinaca diblomaasiyadda, haddii aan markan eego dowladda Sacuudi Arabiya ayaa lagu soo waramayaa inay shuruudo ku xirtay heshiis caadiyeyn ah iyo calaaqaad diblomaasiyadeed oo ay la samaysatay nidaamka Israa'iil, sida ay qorayaan qaar ka mid ah warbaahinta Israa'iiliyiinta ee u dhoon daleela arrimahan isla markaana sida weyn ugu ololeeya. wargeyska Israa'iil Hayom ee ka soo baxa Tel Aviv ayaa sheegay in dowladda Sacuudiga ay toddobaadkii ugu dambeeyay fariimo u dirtay Mareykanka kuwaas oo muujinaya inay diyaar u tahay inay dib u bilowdo wada hadalka ku saabsan ku biirista heshiiska Abraham ee lagu caadiyay xiriirka Israa'iil iyo nidaamkaasi Sacuudiga. sida wargeysku uu qoray ilo xog ogaala ayaa sheegay in Sacuudiga uu dowlad nidaamka Israa'iil aan ilaahdee hadda jirabaaliir ay ku xirtay laba shuruudood oo muhiim ah ka hor inta aysan aqbalin wax heshiisa in lala galo. waxana warbixintu ay sheegtay baaliyada wakiilo ka socda Riyadh inay la xiriireen aqalka cad wasaaradda amuraha dibadda ee Mareykanka iyo xubno ka tirsan Congress-ka iyagoo u gudbiya fariimo midaysan oo ay ku jiraan laba qodob oo muhiim ah: in ra'iisul wasaare Netanyahu la bedelo xilka kadib doorashada Israa'iilna aanu halkaasi ku soo noqon, in la laalo tallaabooyinka oo wasiirka maaliyadda Israa'iil ee Bezalel Smotrich uu ku wargelinayo daanta galbeed 3 sano ee la soo dhaafay. ila Mareykan oo soo xiganaya xaaladan la socda ayaa sheegay in mas'uuliyiinta Sacuudigu ay aaminsan yihiin baaliri inta Netanyahu xafiiska joogo in uu sii wadi doono taageerada siyaasadda Smotrich ee la xiriirta daanta galbeed. warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in Sacuudiga uu ka fiirsanayo suurtagalnimada aqoonsiga Israa'iil, balse taasi ay ku xiran tahay inuu helo tanaasul siyaasadeed oo weyn oo ka imanaya dhinaca dalka Mareykanka. ikhtiyaartana la socotay wararkii ugu dambeeyay gobolka Bariga Dhexe waxba kuguma seegana. wixii soo kordha tabinadeena xiga ayaan ku fiiri doonaa haddii Rabbiga weyn uu saamaxo. meel kasta oo aad joogtaan soo dhawaada kuna soo biira YouTube-ka oo subscribe saara, like saara muuqaalka, share gareeya, qaybta hoose ee commentigana waxaad ku qortaan aragtidiina ku aadan yaa ku guuleysanaya gobolka Bariga Dhexe, ma siyaasadda qamani mise tan Trump. Sacuudiga maxaaba ayaa laga dhigay, Xuutiyiintana awood ma u leeyahay markan inay iska celiyaan. qaybta hoose ee faallada wixii aragti ah inoogu qora. waa mahadsantiin.